gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa madaxweyne xisbiga muxaafidka ee kulmiye iyo sidoo kale wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi ayaa maanta kulan kula qaatay qasriga madaxtooyada ee Burco gudida abaaraha ee gobolka Togdheer kulankan oo ujeedadiisu daarnay dardargelinta xaaladda abaareed ee gobolka ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka ka degmada Burco isduwayaasha laamaha dawladda iyo sidoo kale gudida abaaraha ee gobolka ugu horeyn gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamuud Saleebaan Ramaax iyo duqa degmada Burco Maxamed Muraad iyo xubno kamida gudida abaaraha ee gobolka ayaa waftiga kulmiye uga warbixiyay xaaladda abaareed ee gobolka Togdheer dibtiyayna gaadhay ee xoolaheena dhimanaya gaadhay waa nooc min alcadaab xoolaha laynaga joojiyay ibkoodu waa nooc min alcadaab ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay inooga soo waan idinku mahadnaqaynaa ka qayb qaadashada nagala qayb qaadanaysaan dhibaatadan ka taagan dalka guud ahaan khaasatan gobolada bariga jiilaalka hortii baan sii kharash garownay oo dabka sii galay jiilaalna maanta un baabu kow yiri waliba sidaas haddana hawli aanay dhaweyn iminka markaad meelaha tagto dee waxaynu haynaa iyo baahida ummaddu way kala weyn wixii aanu soo galay ee magaalada ka ururinay ama dawlad nooga yimi ama xukuumadda nooga yimi waxay nagaga dhamaadeen bishaan jilaal bilaamin 158 tuulo oo gobolku iminka inta ooman ah aan biyo ku jirina ayaa mid walba waxa dusheeda ka samaysan tooyar Afrikaan baa ka samaysan oo gobolada bari oo dhan aan maxay hayd maanta cid isdhaantaa jirin oo kii soo guuray soo hayaamay iyo kii lagu soo guuray iyo kii halkiisii fadhiyaaba ay maanta isku mid yihiin oo maxaa la yiraahdaa wixii biyo baad hayeen ay dhamaadeen dadkaas ay dad yihiin xaalad ku sugan maxaa la yiraahdaa ilaahay uu ka sheekayn karo gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa madaxweyne ee xisbiga mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirka madaxtooyada ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay waxaanu gudoomiyuhu uu sheegay in xisbiga kulmiye ugu deeqay abaaraha gobolka Togdheer $40,000 waxaana ay yiraahdeen haddaynu caqli keeno oo ragga qaadka cunaya ay ruux yareeyaan oo lacagta ugu duuno inuu dadkeenu ku gargaarno malaha barya badan ma bayna baahneen iyo in lamida annagu xisbi ahaan maanta Burco degmada Burco waxaanu kaga qayb galnaa abaaraha $40,000 oo ku wareejin doono gudida maanta booyada qaranku leeyahay wixii bal dawladdu gacanta ku hayso iyo wixii ay haaban karto ama iibin karto in xoogaa booyada la keeno oo loo qaybiyo goboladan oo aynu gacanta ku hayno dareewaladooda waxaanu dhawaan halkan ka yeegleeli doonaa xafiiskii abaaraha ee guddiga qaranka kamid ah waxaa guddiga aanu hadda hawlgelinay ilaa 6 tiim oo caafimaad ah oo wareegaya oo dhakhaatiirtaas oo dhan gunooyinkooda iyo gaadiidkooda iyo shidaalkoodaba aanu dabarayno degmooyin fara badan baanu ambalaasyo geeyay dhammaan waa la ururinayaa si xaaladda loo kobgareeyo soo wadnaa caagagii muxuu rabadkee adkaa in deegaanada dadka ku ururay lagu qaybiyo la dhigo iyo taangiyo dadka biyo loogu shubo sidoo kale gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi iyo waftigiisu waxay booqdeen cisbitaalka guud ee magaalada Burco oo la soo gaarsiiyay bukaanada ku waxyeeloobay hilib ay cuneen waa Cabdisalaan Axmed Cawad Cabdi Jermani Bulsha TV Burco.